dowladda hoose ee degmada Burco ayaa howlgallo wada banaan ka bilowday qaar ka tirsan jidadka iyo suuqyada magaalada Burco kuwaasi oo dumiyay meheradaha sida sharci darrada looga dhisay dhulka dhismayaasha hortooda. howlgalladani ay saaka fulisay dowladda hoose ee degmada Burco ayaa horkacayeen gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka Burco ahna kusimaha duqa degmada Burco Master Axmed Cabdi Falay qaar ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ciidamada booliska iyo qalabka dowladda hoose waxaana si weyn loogu burburiyay meheradaha sida sharci darrada uga dhisnaa suuqa laba qow ee magaalada Burco isagu kamid ah suuqyada ugu cidhiidhiga iyo saxmadda badan magaalada Burco. gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee Burco Master Axmed Cabdi Falay oo ka hadlayay goobaha ay maanta howlgalkani ka fuliyeen ayaa sheegay inuu yahay mid lagu banaynayo jidadka waaweyn ee magaalada Burco taasoo uu ku tilmaamay in banaynta iyo hagaajinta jidadkani uu yahay mid si weyn uga qayb qaadanaya ilaalinta muuqaalka iyo bilicda guud ee magaalada Burco. gudoomiyuhu maruu ka hadlayay cabasho ka soo yeedhaysa dadka maanta laga dumiyay dhismayaashani ayaa uu sheegay inay hore ugu digeen muddo gaadhaysa 8 cisho inay kaga furfurtaan balse ay ka dhaga adeegeen arrinkaasi. waxaan fulinay mashruuc aad u ballaaran oo ah wada banayn taas oo aan istiraadadii la xiray muddada dheer aanu banaynayno ujeedada aanu ka leenahay ay tahay bilicdi magaalada oo aan rabno inaanu si toos ah u soo celino haddii la ka dhigo. sidoo kale waxaanu maanta doonaynaa in aynu madax bannaanideennii 1991 aynu go'aanka ku gaadhnay waxaana ka dhacday 18 May in aynu caalamka tusno guri walbana calanka Soomaaliland laga taago. sidaa awgeed waxaan u baahanahay maanta in aynu dariiq kasta aynu banayno haddii la qadaro. howlgallada ay dowladda hoose ee degmada Burco xilligan wadaamaha oo kaliya kuwa lagu burburinayo dhulka dhismayaasha balse waxaa jira in maalintii shalay ahayd ay dowladda hoose rartay istaamada laga raaco gaadiidka u kala bixi jiray Hargeysa iyo gobolada dalka Soomaaliya kuwaasi oo la geeyay barxadaha waaweyn ee Daalo iyo Taaladii Sheekh Bashiir waxaana shalay ilaa maanta ka socday dhulkani ololaha ay dadku dhulkani kaga nadiifinayaan xashiishka iyo qashinka oo hore loogu qubi jiray iyadoo arrintani barbar socotay in dadka qaarkood ay doonayaan in dhulkani ay ka hirgeliyaan dhul degsiimo ah taasoo guud ahaanba ay dowladda hoose ee degmada Burco mamnuucday in wax dhismayaal laga hirgeliyo dhulka qaranka. geesta kale shacbiga gobolka Tagdheer ayaa iyagu si weyn u soo dhaweeyay howlgalladani wada banaynta ee xilligan laga bilaabay magaalada Burco iyagoo tilmaamay in maamulka degmada ay ku garab istaagi doonaan nadiifinta iyo hagaajinta jidadka waaweyn ee magaalada Burco. hawshan iyada ee maanta la qabanayo waxaan u aragnaa hawl number 1 ah oo aasaasi ah oo lagama maarmaan ah xagga caafimaadka nabadgelyada bilicda magaalada intaba hawsha la qabanayo inay muhiim u tahay baan u aragnaa because waxa dhacday halkan inuu taaganahay shilal ka dhacay waabaha dartood waxba laga qaban kari waayay in adeegga bulshada si wanaagsan looga shaqeynayo wadooyinka caalamiga ah la banaynayo waxaan ku soo dhaweynaynaa maayar ku-xigeenka sida wanaagsan uu shaqeynayo ee wadooyinka u banaynayo aad iyo aad baan u taageersanahay. tallaabada dowladda hadday waafaaysan maadaama magaalada ay dadweynaha reer Burco waanu taageersanahay tallaabada ay ugu dambeyntii tallaabadani wada banaynta ay qaaday dowladda hoose ee degmada Burco ayaa ku soo beegmayay xilli dhawaanahanba ay dowladda hoose ee degmada Burco ka waday magaalada hawlo dhismayaal jidad laamiya oo kor u qaaday bilicda muuqaalka guud iyo isu socodka magaalada Burco waxaana haatan magaalada si weyn looga dareemayaa qabanqaabada xuska 18 May oo hormuud u tahay dowladda hoose ee degmada Burco. maxamed Caawad Maxamed telefishinka caalamiga Somali Channel Burco.